shaqeeyo ilaa quruxi waa maal maskax lagu dadaaliyo ilaa garasho waa maal muruq lagu shaqeeyo ilaa quruxi waa maal dhammaan soo qaybgalayaasha meeshan ku sugan dhammaantiin waan idin salaamo waxaan si rabaa in si gaar ah inaan u salaamo wasiirada nagala soo qaybgalay wasiirka cadaaladda wasiirka amniga wasiiru dowlaha howlaha guud wasiir ku-xigeenka maaliyadda wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xildhibaanada guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo dhammaan dhalinyarada waqtigooda inoo soo horay inay doodan nagala soo qayb galaan dadka Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasaa inay yihiin in ku dhow 15 milyan oo 75% ay yihiin dad da'dooda ay ka yartahay 30 sano tan waxay muujinaysaa in haddii awoodda dhalinyarada si sax ah loo isticmaalo ay saameyn togan ku yeelan karto dhaqaalaha amniga siyaasadda horumarinta arrimaha bulshada dhalinyaradu waxay muhiim u yihiin jiritaanka Soomaaliya taariikh ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay door muhiim ah ku lahaayeen halgankii xornimo doonka sanadihii 1940 ilaa 60 kaasoo keenay gobonnimada maanta aan ku naaloonayno dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa dhidabada u taagay xisbigii ugu horeeyay ee siyaasadeed 1943 loona yaqaanay Somali Youth Club kadibna loo magacaabay Somali SYL Somali Youth League xisbiga SYL ayaa 1964 ku guuleystay 56% codadka aqlabiyadda ee doorashooyinka kuraasta baarlamaanka ugu horeeyay Soomaaliya ay yeelato kadib xornimadii sidoo kale dhalinyaradu waxay buddig u noqdeen dawladii kacaanka sidii ururkii dhalinyarada kacaanka Soomaaliyeed iyo ubixii kacaanka ummadda Soomaaliyeed SYL waxay u arkaysaa hogaamiyaasha dhabta ah ee gumaysiga ka saaray dalka taariikhdoodana marna kama go'ayso qulubta dadka Soomaaliyeed waxayna ilaa iyo maanta ku suntan yihiin dhalin ku dayasho mudan dhalinyaradu waxay door muhiim ah ka qaadatay dawladihii iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray sidoo kale waxay qayb weyn ka qaateen horumarinta ganacsiga waxbarashada caafimaadka amniga iyo dawlad dhisidda iyo adeegyada bulshada dagaaladii sokeeye dhinaca kale oo dhalinyaradan aragnay ee foosha xun inay qayb ka noqdeen dagaal beeleedyo argagixiso burcadbadeed iyo tahriibayaal balse nasiib wanaag sanadihii la soo dhaafay waxaa jira geedi socod ay galeen dhalinyaradu kaasoo ku hogaaminaya wadada horumarka si ay ula soo noqdaan magacii iyo sumcaddii sharafta ay ku lahaayeen dunida maanta dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwa waxbartay hogaaminaya isbeddelka dhanka ganacsiga adeegyada bulshada hay'adaha fulinta sharci dejinta garsoorka iyo ciidankaba waxay door weyn ku leeyihiin hanaanka dawlad dhisidda iyo nabadeynta dalka waa mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay waana awood qaran yoolka guud ee kulankan wadahadalka dhalinyarada iyo qaar ka mid ah madaxda hay'adaha dawladda ayaa ah in la dhiirigeliyo in dhalinyaradu ay ka qayb galaan geedi socodka dib u qaabeynta dawladnimada Soomaaliyeed ujeedooyinkan maanta soo kulmayno annaga waxaan u dhignay inay 5 ujeedo tahay iyo su'aalo aan rabno inaan isweydiino ay madaxda qaranka iyo dhalinyarada meeshan fadhiyaan ba ayagana ay ka qayb qaataan oo 3 ah ujeedooyinka kulankanaga waa 1 in la hubiyo isku dubridka iyo isla jaanqaadida dhalinyarada iyo madaxda hay'adaha dalka si loogu adeego bulshada Soomaaliyeed 2 in la dhiirigeliyo ka qaybgalka firfircoon iyo hogaaminta dhalinyarada ee dhammaan
ahdaafka la xiriira geedi socodka dib u qaabeynta dowladnimada Soomaaliya in la xoojiyo iskaashiga iyo iska warqabka dhammaan daneeyayaasha horumarinta dhalinyarada si loo gaaro horumar la taaban karo in la qarameeyo xoojinta dowrka dhalinyarada ka qaybgalka siyaasadda dalka iyo tan ugu dambayso ah in la xoojiyo ganacsiga dhalinyarada iyo hal abuurka mudanayaal iyo marwooyin mudanayaasha golaha wasiirada inagu matala asxaabtanada iyo dhalinyarada meesha lala fadhido isugu jira dad hal abuuro leh dhaqaatiir xirfadlayaal ganacsato su'aalaha aan rabno inaan isweydiino waa kuwa soo socda kow ma muuqdaa doorka ama kaalinta dhalinyaradu ka qaataan geedi socodka qaran dhiska dowlad dhiska Soomaaliya labo waa maxay caqabadaha dhalinyarada ka haysta ka mid noqoshaha hay'adaha dowladda hadday jiraan saddex waa maxay doorka dhalinyarada